السلام عليكم أغيارت ميل والبا جوجتان وحان إذن كسلامينا منصبكا aad ku joogtaan kusoo dhawaada sheeko xiiso leh haweeney garoob noqotay 2 maalin kadib guurkeedii Valeria Subtoni iyo saaxiibkeed Andri Subtoni ayaa qorsheynayay in xafladda arooskooda ay dhigtaan isla markaana ay ku martiqaadaan ehelkooda iyo saaxiibadooda gaarka ah ka hor bilaabashada dagaalka weli socda ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Lamaanahan ayaa ka tirsanaa ciidamada Ukraine ee ku sugnaa magaalada degada leh ee Mariupol, waana halka ay doonayaan in xafladooda ka dhacdo. Valeria ayaa ku dhaawacantay dagaalka wax yar kadibna markii ay ka soo baxday isbitaalka wuxuu ku wargeliyay saaxiibkeed in ay isguursanayaan oo uu doonayo in uu hirgeliyo hadafkoodii ay mudaba ku taamayeen. Mrs Valeria way aqbashay waxaana guurkooda iyo faraanti galiskoodu u dhaxeeyay bishii May ee 2022 xilliga arooskoodu dhacayay waxay xirnaayeen lamaanahan dareeska ciidanka ee tuutaha, balse nasiib darro 7 bishii May ayuu Andri Subtin oo 34 jir ahaa ku dhintay dagaal ciidamada Ukraine ay la dagaaleen kuwa Ruushka. Sidaas ayay Valeria 2 maalin kadib ku noqotay garoob, taas oo nolosheeda saameyn ku yeelatay maadaama ninkeedii ay ku weyday dagaalka xilli ay ku jirtay meeshii ugu farxadda badneed nolosheeda.